iyadoo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose laga xusay sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay asaaska maamulka Jubbaland ayaa dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxa aan ka weydiinay aragtidooda ay ka qabaan 4 sano kadib waxyaabaha ka qabsoomay ama niraahday waxyaabaha u qabsoomay maamulka Jubbaland ee iminka ka hana qaaday deegaanada Jubbaland. Jubbaland 4 sano waxa uu qabsoomay waxaan la soo koobi karin ma sha Allah ilaahay baa garan kara waxa noo kordhay dhismaha gaadiidka dabeecadda iyo nolosha dadka oo isfahmaya amniga oo mid ilaahay nasiiya cid baa keentay ma dhihi karo ilaahaas mahad leh waad arkaysaan anigu waxaan ahay madaxa traafikada gaadiidka iyo dhibkana kala haysta waad aragtaan ma sha Allah Jubbaland markay maxaa u kordhay maamul ahaan wax badan baa qabsoomay laakiin dad meel banaan ka yimid baan ahayn markaad eegtana waa faaro waxay u baahan tahay hadda isla xisaabta bas qof waliba shaqadu hayo oo la xisaabtamo 4 sano wax baa khaldamay maslada 4 sano wixii qaldan qalad lama waayo oo ilaahay baa qalad iyo saxda bini'aadmiga uu noo sameeyayba mar walba in qaladii way jiraysaa laakiin waxaan isleeyahay qaladkiinu waa mid laga hortagi karo waa Jubbaland aad iyo aad baan u taageersanahay aad baan u raacsanahay waddankeena isbedelka caadi weeye waa nabadda caadi weeye 4 sano kadibna Jubbaland waxa weeye waxaan ugu mahadinaynaa ilaahay in waxaan u baryaynaa ina ilaahay kor u qaado oo caadi ay noqdo waddankeena caadi nabad baan ku joognaa saas baan codsanayaa Jubbaland waxay isku haysaa waa beel haday run sheegayso ha horeyso dhulka ha dhaqaaqdo guryaha dhexdooda yaan lacagtii lagu cun dekada ka soo baxda waxa loo qabto ummadda Jubbaland wax weyn baa u qabsoomay 4 sano ee la soo dhaafay ayaalaha u qabsoomay waa wax aan hadda la qaran karin oo aad iyo aad u tiro badan lamana soo koobi karo heerka ay amniga ka gaartay waad la socotaan oo waxaan hadda isaga waramayna maaha Jubbaland amnigeedu aad iyo aad buu u sareeyaa dhismayaashii haykalka dawladeedna si weyn bay u horumareen ciidamada xataa qaybahooda kala duwan waa la mid marka Jubbaland horumar weyn oo la taaban karo ayaa ka jira ma wax ay ka gaabisay hadda ma jiraan 4 inta soo socota hadda insha Allah xoreynta dalka iyo maaragtay waxa hadda dhiman ayaa lagu talaabsanaya laakiin run ahaantii horumarka la gaaray mid la soo koobi karo ma wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland waa hal sano magacaabihiin waxaad muddo xogaa fadhiidnimo inay ka muuqato wasaaradaha dowlad goboleedka Jubbaland marka maamul wanaag baa loo baahan yahay in taqaana wasaaradaha la active gareeyo arrimaha bulshada si mataqaana ay si fiican ay ugu hirgalaan gudoomiyaha aasaasiyaasha Jubbaland ee xilligaasi Imaam Rashiid Cabdi Axmed ayaa wax ka weydiiyay aragtidiisa ku aadan 4 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulka Jubbaland walan magacayga waa Imaam Rashiid Cabdi Axmed waxaan ahay gudoomiyihii aasaasiyaasha Jubbaland baan ahaa waxaan ka soo bilownay meel ciidanka markii laga reebo ciidanku waa muddo badan ay ku meelo badan ka soo laga soo aruurshay laakiin xagga siyaasadda waxaan ka soo bilownay magaalada Doobley kadibna waxaan ku qabanay shir baan ku qabanay magaalada Doobley shirkaas ayuu ahaa shirka koobaad ee siyaasadeed ee isugu yimaado la isugu keenay beelaha kala duwan la isugu yimaado halkaas aan isugu nimid ilaa haddeerna waxaan diyaar loo siiyay in hore loo socdo marka kulley waxa qabsoomay awalan xagga nabadgelyada hadda waxaad moodaa magaalada Kismaayo inay aad iyo aad u fiican tahay ciidan waa la dhisay wasaaradda waa la dhisay maxaan ku dhahaa waa la dhisay maxaan ku dhahaa ku xigeenno waa la sameeyay maxaakiimtii qaarkood badi waa la sameeyay hawlihii dawlad ahaan maamul ahaan in la dhameystiray baad moodaa laakiin waxa ka dhiman waxyaalo badan baa ka dhiman ma jirto wasaarado sidooda inta u shaqeeyo hadda ama shaqo abuur sameeyay ama hawlo badan qabtay ama miisaaniyadu inta loo dajiyay wasaaradu miisaaniyada la siiyay iskood u shaqeynayo oo iskood u madax banaan oo maxaan ku dhahaa hawlihii ayaka loogu talagalay qabsanay mijintaasna waxa keentay waa dhaqaalaha xaqiisa keentay dhaqaalaha ayaan jirin dhaqaalaha ayaa mataqaana aad u hooseeyo
dhaqaaluhu waqtiga hadda wuxuu ku kooban yahay in nabadgelyada la sugo maxaan ku dhahay waxyaalaha yararka ayuu ku kooban yahay daawadayaal waxaan intaa ku soo gabagabaynaynaa warbixintii aan kaga hadlaynay aragtida dadweynaha ee ku aadan markii la aasaasay maamulka Jubbaland oo ku beegan 4 Abriil